asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba kusoo dhowaada taariikhda magaalada qadiimka ah ee beledweyn. magaalada beledweyn waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan waddanka Soomaaliya, waxayna dhacdaa bartamaha dalka Soomaaliya. beledweyn waa xarunta gobolka Hiiraan, waxaana hoos yimaado ilaa 4 degmo oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo kala ah Matabaan, Maxaas, Buulaburde iyo weliba degmada Jalalaqsi. magaaladani ayaa waxaa mara webiga Shabeelle oo ka yimaado dhanka waddanka Itoobiya, walow ay dadku sheegaan inuu webigu beledweyn u maro sida xarafka S ama S. waxay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho u jirtaa masaafo dhan 206 mayl oo u dhiganta 335 kiiloomitir. waxayna u qaybsantaa ilaa 4 xaafadood oo waaweyn oo kala ah Howlwadaag, Xaawataako, Oktoobar iyo weliba xaafadda Kooshin. beledweyn waa magaalo Soomaaliyeed oo taariikh fac weyn ku leh la dagaalanka gumeystihii Talyaaniga. magaalada beledweyn goobaha ugu caansan oo waaweyn waxaa ka mid ah labada buundo oo kala ah buunda liqliqata iyo weliba buunda weyn. halgamayaashii iyo dagaalyahanadii ka soo baxay gobolka Hiiraan ayaa waxay noqdeen kuwo la dagaalama gumeystihii Talyaaniga oo guulo waaweyn ka soo hooyay intii u dhaxaysay sanadkii 1930 iyo weliba 1952 oo wixii intaas ka dambeeyay ay Soomaaliya yeelatay maamul daaqili ah oo lagu gaaray xorriyaddii guud iyo weliba israaci kowdii luuliye ee 1960. Sahahan kunimiyo dibahata muto Doma halayga saray dinacyadae Tara harkan waxyeeladini dhaqdhaqe Halan kadib waysowmato. haddii aan wax ka tilmaamo dadkii beledweyn ka soo baxay ee taariikhda Soomaaliya baalka dahabka ah ka galay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya ama aabihii dimuqraadiyadda Afrika Aadan Cabdulle Cusmaan oo ku magac dheeraa Aadan Cadde, iyo weliba Asli Xasan Cabaade oo ah gabadhii ugu horreysay oo diyaarad duulisay oo Soomaali iyo Carab iyo Afrikaan intaba ah.